kusoo dhawaada casharkeenii labaad ee pandas python. waxaa casharkeenii koowaad kusoo gabagabeynay functionkan ama linekan of codekan oo ahaa wax aan ku jiraan datadeena ku jiraan waxaan cell banaan wuxuuna tusayay inaysan waxba cell banaaneen oo zero tahay. macnaheedu waxaa weeye haddii magaalooyinka qaar seelashooda ay zero ahaan lahaayeen ama waxba aysan none ahaan lahaayeen meeshan waxaan soo dhigi lahaa hal xabo, laba xabo, saddex xabo oo macnaheedu wuxuu yahay 5 xabo ka maqan cellkan. countiga waxaa maqan 10 xabo dhihi lahaa. marka hadda waxaan seelasho dhan ama kulli way buuxaan. halkaas inoo marisay casharkeena labaad waxaa ku bilaabeynaa waxa la dhaho price oo ah df oo datadeennii aan kusoo variablekiina la baxnay price oo isku dardar inuu isku hay dardaro priceka. pricekii markii la isku wada dardaray columnka priceka waa column dhan halkan ayaa ku arkaysaa haddaan idin tuso columnkan priceka midka hadda guriga ugu horeeya waa 25,000 oo pound, kan waxaa 42,500 baa la isku dardaray waxay noqotay lacag 40 bilyan ka badan oo pound. haddii lacagtaasi pound ahayd saasay noqonaysaa. dot unique df dot non unique wuxuu qabtaa waxa weeye wixii aan copy ahayn oo aan soo laba noqonayn oo unique ah oo hal xabo ah. tusaale ahaan town and city columnka ah imis ayaa unique ah. macnaheedu waxaa weeye 1,170 magaalo buu ka kooban yahay. magaalooyin soo laba noqdo way jiraan hadee London iyo Birmingham iyo Manchester iyo tiro number oo badan ayaa kaga jira datadan waa 22 milyan oo row way. marka London oo kale 17 milyan oo record ah laga hayaa. marka 17 milyan noo tirin mayo, wuxuu noo tirinaya London hal number ma noogu tirinaya London hal magaalo hal shay, Birmingham hal xabo, Manchester hal xabo. unique waa waxa lagu sheegayo la dhahay unique waa intaas. linekan isaguna waxa weeye laba column awal waxay ahayd datada dhan, laakiin hadda waxaan rabaa laba column inaad igu wixii unique inaad ka ogaado. tusaale ahaan district xaafadda iyo priceka. hadda district oo kale 450 district unique ayaa ku jira oo hal xabo ah. tusaale ahaan haddii magaalo xaafad la dhaho x oo mid kale y la dhaho x iyo y noo tirinaya isku dardaraya, laakiin x haddii 10 xabo kaga jirto ma noo tirinayo. saas weeye. pricekuna waxa weeye waxaa haddii guri London laga gatay 1 milyan, haddana guri kale oo London ku yaal 1 milyan lagu gatay, labadaa jeer oo soo noqday ma noo tirinayo. wuxuu noo tirinaya hal mar oo 1 milyan noo tirinaya. haddana guri kale oo 100,000 oo London laga gatay hal mar 100,000 noogu tirinaya. macnaheedu waa sidaas. marka waxaa idin tusayaa haddii aad rabtaan inaad laba column isticmaashaan inaad labadan open bracket inaad furtaan qoyseenkayga noocan u eg waxay noqonaysaa waa list python baan kusoo baranay. kadibna non unique oo methodkan oo pandaska raacinaysaan. df-kan waa variablekii noogu xariisnaay datadeenu. kan bal aan fiirino, waxaan rabaa inaan xasuusiyo datadeena sidoo ekayd df.head 5 line oo row ugu horeeya. casharkeenii hadda koowaad ayaan kusoo baranay inaa aragtaan. xaggan waxaa noogu jira column la dhaho ppd category type. marka waxaa rabtaa columnkan si loo tirtiro inaad tirtirtid baa rabtaa gebigiisaba. marka waxaan isticmaalay variable cusub ayaan sameeyey oo df1 ah oo la bixiyey. waxaad doonta oo bixin kartaa. df-kan waa keenii datadeennii noogu xariisnaa variablekii. marka wax tirtiraysid waxaa la isticmaalaa methodkan pandas leedahay la dhaho drop. waxaa la socda qoyseenka noocaana. kadibna columnka tirtiraysid titlekiisa kan weeye rabaa inaad tirtiro ayaa halkan geliyey. kadibna waxaa gelinaysaa access 1. macnaheedu waxaa weeye pandas waxay taqaanaa columnska sidaan ah verticalka ah columnka kuwa ah 1 ayay taqaanaa, rowgana waxay u taqaanaa 0. marka macnaheedu waxaa weeye kan oo ah column 1ku macnaha weeye waa column inaad tirtiraa rabaa. okay, markaan tirtiray waa kan hadda booska uu ka baxay waa aragtaan waa laga saaray.
dot head 3 xabo tusodaan hoos 3 xabo oo kan kuma jiro. haddana waxaan rabaa inaan tirtiro labadanba inaan tirtiraa rabaa hadda. sidoo kale aan soo qaatay df2 kii kambu 1 buu ahaa, df2 hadda waa variable kale asana aan bixiyey. df keeni oo ahaa keeni hore datadeeni hore originalka ahayd dot drop aan iri qoysooyinkan baa la isticmaalayaa hadduu hal xaba yahay. laakiin hadduu laba wixii noqdaan laba column waxay noqonayaan list. marka waxaa isticmaalaysa calaamadda list qoysooyinkiisii oo aan hore usoo baranay oo sidaan u eg ayaa khasab ah inay gelisaan. kadibna titlekii aad rabtid inaad tirtirtid columnka oo ah kan iyo kan labadii ayaa meesha kusoo koob macnaha ku qortay. kadibna waxaan u sheegayaa inay labadan column yihiin labadan access 1 macnaheed waxa weeye waa column. hadda intuso markii la tirtiray datadeeni count ayaa noogu dambeeya. hadda waa kan labadan waan ka tirtiray. haddana waxaan baranaynaa linekan oo kaleeto oo bandit ka mid ah oo isaguna wuxuu yahay df set index price. haddaan usoo noqono halkan waxaa noogu jira 0 1 2 oo macnaheed waxaa yahay automatically ayay index noogu sameynaysaa bandits. marka haddaadan rabin automatican oo bandits noo sameysa hadda 1 0 1 2 3 gan wuxuu soconayaa ilaa 20 milyan buu numberkaas wadaya. haddaadan rabinin oo rabtid inaad hadda matalan kanoo kale ka dhigatay index price sidan ayaa loo qoraa. set index ayaa isticmaalaysaa functionka la dhaho. waa kan waxaan ku iri df oo datadeena originalka ahayd waxaan indexka nooga dhigtaa price. waa kan price buu nooga dhigay oo 1 2 3 meesha waa laga saaray. waxay ku anfacaysaa tusaale ahaan 1 2 3 gaas waad u baahnayn. hadda cashar hore aan sameeyey oo ku saabsanaa racing bariska tusaale ahaan waxaan rabay inaan ka dhigto indexka date ama taariikh ka dhigto. hadda taariikhdan datekan oo kale inaan halkan soo gashto baa shuruudi ka mid ahayd markaan sameynayay graafkaas oo kaleeto. marka u baahan arki doontaan wax loogu baahdo set index. marka waxaa rabtaa inaad haddana kusoo ceshatid 0 1 2 3gii waa soo ceshan kartaa. waxaa isticmaali kartaa functionkan kaleeto oo ah reset indexka df reset index baa dhahaysaa. hadda meeshaan kan ku ahaa set index oo waxa weye set garay ama u assign garay price. haddana waxa weye reset ku samee oo dib igu soo celi. halka qoysooyinka khasab drop true na waa gelinaysaa. marka waa kan hadda 1 2 3 noogu soo celiyay pricekiina meeshiisa hore ayuu ku soo celiyay. all price baa hadda noo ah. okay haddana waxaan rabnaa inaan barano waxaan horey idinku tusay hadda kan ku noqdo waxaan u assign garaynaya mar walba df2. laakiin haddaadan rabin inaad variable cusub bixisid mar walba waxaa sameyn kartaa waxa la dhaho kan waxaa leedahay df2 set index price in place 2 gan waxa weye iigu save garee oo mar dambe hay weydiinin. hadda tusaale ahaan df2 hadda waxaa ku macnaha meeshii indexka ahayd noogu jira price. haddana waxa uu noogu save garaysan yahay hadda dhowr jeer running dhaho mar walba pricekaas ayaa noogu save garaysanaanaya ma soo noqonayso indexkii totally meesha ka baxday oo kana si permanent ah kana noogu save garaysmaya. waxaa kaloo haddana baranayna wax la dhaho inaan la soo baxno ama filtering ku sameyno datadeena. waxaan dhahaynaa columnka town city oo columnkan magaalada Birmingham kaliya macnaha columnkaas waxaa ku jira magaalooyinka waaweyn Manchester iyo London ayaa ku jira. marka waxaan rabaa inaan magaalada Birmingham kaliya aan ka doorto ama iisoo dhigaan dhaho. waa kan marka magaalada Birmingham kaliya iisoo dhigay. marka dot head 5 xabo ugu horeysay tus saas ayuu
haddaad rabtid inaad hadda matalan ba tusaale ahaan data kale oo waxaa haysataa ay ku jiraan magacyo tusaale ahaan Axmed iyo Maxamed iyo marka waxaa rabta inaad tirahdid name ayaa column-kan kugu qoran, waxaa rabta inaad ogaatid imise Maxamed ayaa ku jirta, marka waxaad dhahaysaa df names kalahaan kadibna Maxamed iisoo qabo oo ma rabo Axmed iyo Cali iyo Caasha iyo magacaas ma rabo, iisoo wixii Maxamed ka bilowna kaliya rabo. kan waa kanoo kale u dhigmaya u dhow yahay isku mid yihiin. Waxaa kaloo isticmaalayaa oo baran doona hadda waxaa la dhaho filterinka aad ugu arki doontaan oo ah log oo location loo soo gaabiyey. Waxaan iri sidoo kaleeto waxa ay soo qabataa tii horeeto kaleeto weytan. Marka waxaan tusayna isku mid yihiin laakiin locationka ama logo iyo ilog ayaa jira. Haddaan tusaya tusaalahan kaleeto ayaan ku tusayaa. Waxaan hadda rabaa inaan kan sameeyo magaalada Birmingham townka iga dhig property qaybkana waxaa iga dhigtaa semi detached oo waxaan soo galan property type inay type badan ay ahaayeen hadda terrace oo kala ka mid ah. Marka waxaan rabaa semi detached kaliya iyo magaalada Birmingham oo ah city iyo townka Birmingham. Marka laba xabo oo isku dari karta calaamad an ayaa isticmaalaysaa. Waxaa kaloo isticmaalaysaa location waxaa laga rabaa magaca. Haddaa magaca taqaanid column-ka hadda price oo kaleeto baa location isticmaali doontaa, laakiin haddaad aqoonin oo ilog hadda kan soo socda ku fahmin kugu sharxi doona. Haddaan tusaale kale in ka siiyo log wuxuu qabto waxaa hadda halkan ku sameynaya wax la yiraahdo df oo datadayni ahayd locationka waxaan iri 0 ka bilow waa rows kan ka hadlaya marka ugu horeysa row 0 ilaa 3 soco. Marka waxa weeye 0 1 2 3 ii soco. Dhinaca columnska waxaa ii soo qaadaa columnka price-ka iyo columnka city county. Marka hadda halkan dhaho 4 dhaho 4ka wuxuu na tusayaa meeshan 3 4 buu noqonayaa. Haddaad 10 ka dhigo 10 buu noqonayaa. 10 row baan ka wadaa. Hadda rabo inaan geliyo column kaleeto waxaan komadan baa furayaa column-kan kale date and of transfer baa haddana halkan geliya. Kadibna haddana u gudubna waxa la dhaho ilog oo macnaheedu yahay index location ahaan. Tusaale ahaan haddii aadan aqoonin column-ka magaciisa tusaale ahaan price-ka oo kaleeto ma taqaanin laakiin waxaa og tahay location-ka ku jiro. Waxaan soo baranay Python waxaan iri column-ka ugu horeeya waxay ka bilowdaa 0 kan 2 3 saas u wadaa. Tusaale ahaan waa kan waxaa iri df ilog isticmaal waxaa ka bilowdaa macnaheedu waxa weeye haddaad halkaas 0 aad waxba gelin wuxuu automatically ka bilaabayaa 0 ilaa number 3 oo aysan ku jirinin rowga 3 kuma jiro laakiin waa 1 2 3 itus. Kadibna waxaa iri meesha marka hore gelinayay price-ka iyo county-ga waxaan iri waxaa gelisaa column-ka 1 iyo column-ka 2. column-ka 1 hadda wuxuu noo soo qabtay date of price-ka 1 ah date of transfer no 2. Marka datadani haddaad dib u fiirisid Python waxay ka bilowdaa index-ka ma xisaabiso parentheses-ka waxay xisaabinaysaa column-kan bay waxay ka dhigaysaa 0 ka bilaabanaysaa price-ka waa 1 kana waa 2. qayb ka mid ah algorithm-ka oo kaleeto ilog loo baahan index-ka inaad isticmaashid. Marka index ayaa isticmaalaysaa leedahay column-ka 0 ka bilow ilaa column-ka 5 soco ama column-ka 5 ka bilow. Marka ilog waxaas ku fiican yahay. Haddana waxaan baranaynaa line-kan ku baranaynaa inaan datadayni column kale kusoo siyaadino. Awal wuxuu noo ahaa noogu dambeysay record status monthly file on baa noogu dambeysay. Haddana waa ujeedaan waxaan ku taray new column aan u bixiyey new call usoo gaabiyey. Kadibna waxaan ku iri waxaa ku qortaa hello daas ilaa 22 milyan bay soconaysaa. Marka
marka sida assigning loogu sameeyo ama column loo sameeyo cusub waa sidaas. df oo qoraysaan, qoyskaas furaysaan, hadda waxaa ku qoraysaan title-ka column-ka magaca bixinaysaan, hadda new column oo saa ugu bixiyo kale, kadibna waxaa ku qori lahaa iyadoo kale halka qoraysaa. kan kale waxaan ku baraynaa waxa la dhaho inaan dhahno waxaa noo sameysaa row la dhaho x iyo column la dhaho y, kadibna waxaa noogu qortaa aan ku yidhi 1 meesha ku kulmaan. hadda waa kan rowgeenan indexkiisa waxaa loo bixiyey x, waa kan x, y oo ah column cusub ayadan ka dameysanay column-kii aan sameynay marka dhaweyto ayaana loo sameeyey. waxaan ku bixiyey in lagu buuxiyey nan oo macnaheedu waxa weeye none, waxba kuma jiraan, laakiin labadooda meeshay ku kulmaan oo halkaana cell-kaas ayaa 1 loo geliyey. kaasna intaas u qabtaa. marka casharkeena aan intaas kusoo gabagabeynaynaa binding ku saabsan. qaybaha kale la socda fadlan, aad baa umahadsantihiin. wixii su'aalo iyo qabtaan iyo commentiba hoos kusoo qora ama emailka noogu soo diro insha Allah. subscribe na siiyo.